soo dhawaada saaxiibayaal halkan warbixin kooban baan idinku hayaa warbixinta koobani waxa ay qusayso inuu kaga sheekeynana filimaan ay sameeyntoodu qaadatay muddo aad u dheer ma u malaynaysaa ama caqligaaga ma gelaysaa filin ayaa la sameynayay muddo ku siman 36 sanadood ama 41 sanadood oo intaas oo dhan productionkiisa sameyntiisa waxa yabaha soo idil ay socdeen waa cajiib soo dhawaada halkan waxaan kugu hayaa oo kugu sharaxaya 5 filim waxa ay sameeyntoodu qaadatay muddo aadan filahaynin ama maskaxdaada ay la yaabi doonto xagga sare ayaan ka soo bilaabi doonaa wax badan si sharaxi maayo filimaanta ama sharaxaad aad u sii tiro badan oo aynu markaa waxa soo dhan ku kala dhigdhignagelmayno balse laakiin badankooda ama 5 filim aan idhaahdo qaar kamid ah inaan tabaaxo ayaa macquul qaar kamid ah warbixintooda oo gaaban awgeed insha Allah markaasi waan soo gaabin doonaa ama waxaan sheegi doonaa intii ay sameeyntu qaadatay waqtigoodii iyo waxyaabaha soo yidhi xagga sare ka soo bilaabi doonaa lambar 5 baan ka soo bilaabay lambar 2 ayaan soo gaarsiin doonaa filimka shanaad waxa weeyaan waa filim la yiraahdo The Horizon Blue ayaa la yiraahdaa filimkaasi Horizon Blue ayaa la yiraahdaa filim Mareykan filimkan sameyntiisu waxay qaadatay muddo ku siman 24 sanadood ma malaynaysaa muddo ku siman 24 sanadood ay qaadatay filimkan sameyntiisa waxa la bilaabay 1995 sameyntiisu xilligaas ay bilaabantay xilligii duulistiisu ay bilaabantay 1995 gayahay xagga soo wareegay muddo ku siman 24 sanadood oo waxa la sii daayay oo filimka la daawaday 2019 dhamaadkiisii intaas oo dhan waxa socotay sameyntiisii productionkiisii waxyaabaha soo idilaya socday waa muddo ku siman 24 sanadood laga yaabaa qaar kamid ah inay geeriyoodeen filimka afraad waa filim sameyntiisu ay qaadatay muddo ku siman 36 sanadood oh my god 36 sanadood filimkan waxa la yiraahdaa Life of Crime waa filim Mareykan isaguna sidoo kale filimkan sameyntiisa waxa la bilaabay 1984 filimka la bilaabay intaas oo dhan sameyntiisa ayaa socotay balse laakiin waxa la sii daayay oo aakhirkiisii la daawaday 2020 ayaa la daawaday yani aqliga gelimayso filim intaas oo dhan la sameeyay muuqaatay muddo inta leeg waxa ugu cajiibka badan halka kugu ayaa wuxuu filimka ugu dheer adduunka waqtiga ugu badnaa la sameeyay filimkaasan u sheegay balse laakiin horta inta aynaan gaarin kuwa ka horeeyay eegno halkaas ayaan ku soo dhaafi doonaa lambar 3 ayaan markaasi soo gali doonaa filimka saddexaad ayaan halka ku soo bandhigana waxa weeyaan filimkan isaga waxa la sameeyay muddo ku siman 8 sanadood 8 sanadood waa dad goy walwaleyn 8 sanadood ba filim la sameeyay taad adigu wax kale ku mashquulsanayd filimka qaar kamidna inay geeriyoodeen baba wax dhici kara waxa la sameeyay muddo ku siman 38 sanadood filimkan waxa la bilaabay 1970 ayaa la bilaabay oo duubistiisu ay bilaabantay waxaana la sii daayay ugu dambeynta oo la dhameystiray 2008 ayaa filimkaas la daawaday sidoo kale waa filim Mareykan waqti inta laga ay sameyntiisu qaaday filimka waxaan soo galayaa labaad filimkan intee lagu sameeyay waa tobanada balqiyaas 41 sanadood baa lagu sameeyay filimkan sameyntiisu waxay socotay muddo 41 sanadood 41 kaas sanaba filimka wala sameeyay wala duubay wala editgareynay oo laga yaabaa qaarkood in caqabado fara badan oo dhinaca dhaqaalaha siyaasadda sharciyada waxyaabaha soo idilay ay soo kala dhex galaan balse laakiin ugu dambeyn filimaanta xilligii ama waqtigii loogu talagalay ayaa la sii daayay haba badnaadaan waqtiga la sameeyay filimka waxa la yiraahdaa Overcoat ayaa filimka la yiraahdaa Overcoat sidoo kale isaguna filim Mareykan waxa kale cajiibka badan waxa uu yahay filimkan Overcoat waxa la bilaabay 1981 oh my god 1981 ayaa la bilaabay hadaba maxay kula tahay in xilliga filimka la dhameeyay filimka xilliga la dhameystiray markaasi la sii daayay sida aad u malaynayso ma sababtoo ah ilaa waqti xaadirka 2023 aan ku jirno filimku waa socda wala sameynaya wax cajiib badan weeyaan ilaa imika sameyntiisa socda oo lama sii dayn hadaba filimka ugu dambeeya ama filimka shanaad ayna u soo galeen filimkaasi waa filimka ugu dheer adduunka waqtiga ugu faraha badan qaatay sameyntiisu si lagu guda jiray filimkan waxa la sameeyay muddo 48 sanadood sameyntiisa waxa la soo bilaabay 1970 ayaa filimka la bilaabay waxaana la dhameystiray oo filimka la sii daayay 2018 dhamaadkii 70 ayaa la bilaabay muddo 5 sanadood ah ayuu hakad galay kadibna 76 ayaa dib loo sii bilaabay inta aan 85 kala gaadhin 1985 la gaadhin aynu ka directorka geeriyooday kadibna filimkii dib habayn ay lagu sameeyay wala sii bilaabay wala sii waday 2014 ayaa la soo gaadhay kadibna haddana wala cusboonaysiiyay markaas 4 sano wixii ka dambeeyay ayaa dib loo sii daayay 2018 dhamaadkiisii waa 5 filim ee adduunka ugu dhaadheer qaar kale oo fara badan oo jiraan inay ka dheeraadaan waa laga yaabaa inaad filimaan kala soo heshaan waa laga yaabaa iyaguna waqti inta ka sii badan ay sameeyntoodu qaadatay qalkan shantaas ayaa aan kugu soo koobaya ma isleedahay ama filimkee ayaa adiga kugu la yaab badan oo waqtigiisa aad isleedahay ama macquul tahay inta waqtiga inta laag in ay qaadatay walada hoose nagula wadaag aragtidooda waa muhiim
mid kalena aan kugu sii daray ma ogtahay filimka sanadkan aan soo dhaafnay December film la sii daayay oo la yiraahdo Avatar The Water of Fire la yiraahdo film aad u saameyn badan buu ahaa waxa filimkii aan muddada gaaban ama bil wax ka yar ku soo xareeyay lacag 500 milyan kor u dhaafaysa marka filimkaas film dunida aad looga hadlayay waxa aadna loo falanqeeyay recommendations fara badan laga bixiyay waxyaabaha soo dhan marka filimka sameyntiisu bal xilliga bilaabtaan ku sheego ama xilligii la shaaciyay in filimkaas la bilaabo oo la duubo waxay ahayd 2012 kadib ayaa marka la sii daayay 2022 December 2022 bishii December filimka waxa la sameeyay muddo ku siman 12 sanadood ayaa sameyntiisu qaadatay caqabada ugu weyn ee dib u dhigtay ama sababtay in xilligan uu soo gaadhona waxa ay ahayd in filimka ay soo wajahday caqabadii 2019 dhamaadkiisii bilaabantay ee COVID-19 awadii in loo joojiyay in dib loo sii sameeyo intaas oo dhan soo jiitamay marka muddo 12 sano kadib ayaa la sii daayay sanadkan soo dhaafnay aakhirkiisii December 2022 film aad u xiiso badan buu ahaa dadkuna ay aad markaasi uga falceliyeen waxaan rajaynayaa inaad ka faa'iidaystay oo muuqaalkan ku cajab galiyay ama wax uu kugu soo kordhiyay fadlan haddii ay tahay markii kugu horeysay oo aad soo booqatay channelka ama markii ugu horeysay oo tahay halka timaado nagu soo biir subscribe saar like share sidoo kale kiloobin sidoo kale page-ka Facebook-gana follow iyo like saar si markaas aad ula socoto muuqaal walba cusub oo aan soo gelino aad iyo aad baad mahadsantahay